dadka qaarkood shiicada u badan yihiin inta xaramka la joogo quburahay fadhiyaan iyagu meel qabri oo ka ageeg qayrkiina boqol kun oo salaadood buu guranaya wuxuu taransaday intuu qofku qabri dul fadhi lahaa ama ziyaaraad ku wareegi lahaa meel heblayo ma soo eegnaa iyo dalxiis iyo booqasho waxa ka afdalsan oo ka habboon oo uga anfac badan inuu hadduu madiine joogana masjidka nabiga laazimo sal allahu alay wasalam oo rasuulku uri salaad lagu tukado masaajidkaygani waxay ka fadli badan tahay 1000 salaadood oo qeyrkii lagu tukado marka laga reebo xaramka baa nabigu sal allahu alay wasalam hadduu maka joogana inuu masjidul xaraamka laazimo oo salaadaha iyo maaragtay waxa weeye mukuudka iyo ku nagaanshaha masjidka badsado shanta salaadood jamacooda inuu masaajidka xaramka meel aan ku dhaafin aanu ku oogin ku dadaalo ayaa waxa weeye anfac iyo afdal ah maqsuudka qofku uu tagay inuu meesha uu tagay inuu gartana waa muhiim jiddan rasuulkuna wuxuu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam salaad qura oo lagu tukado masjidka xaramku waxay u dhigantaa ka fadli badan tahay 100,000 oo salaadood baa nabiga sallallahu alayhi wasallam 100,000 salaad 100,000 صلاة في صلاة واحد حقيت كيلسة طول عمرك مهلس بركة خفك هلك أنت قدر كأيامها وتشوفه إنه وقت جيسا كبحيو وقت جيسا بدن وتشوفه مسجد كحرم كيمساعد كرسولك عليه الصلاة والسلام هدو مدينة تشوفه يا هدو ما كتشوفه مسجد كحرم كده داله أي الله بهاي ده مكا اختارتك كلام قاركو حكمت هنا مقابرته وقتها كله مياه